بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحوينها جمهورية سومالان أحمد محمد سيوانيو مهوبة قهنكا وسيهوبة هالكن شوغا حلبانبا بهذا الصحافة دنيا المتطوعين تا تلياشا عيدمبا يدما شعبينا سومالان با عيد وناكسن أن كل عيد يدين ما أنتي قهنمبا iyadoo madaxweynuhu uu bedelay maalinta inuu ummadda wax loo qabto oo ummadda abaarta ku tawaalowday dib looga soo doojiyo arrintaas oo ay ka mid tahay madaxweyne maanta in halkan dhaamkan noo amartay in la qodo oo ah meeshan oo ah makhaayadda inanta waxaan xasuustaa markii ugu horeysay codkaaga maqlo anigoo dhalliyahan qaangaar ahayn idaacadda BBC inaan ka dhageystay makhaayadda inanta waa xaafidalkiisa ka mida waa goob istiraatiiji cabdullaahi xaajo goormeysige maanta waxay farxadii tahay adoo madaxweynahaygiiya inaad maanta halkan aynu ka qodno anna adigoo aan daadi ahayn siyaasiya maalinkii magaalada inaan halkan aan goobjoogku ku ahaado madaxweyne inaad noo fasaxdo in dhaamkan la qodo waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhalinyaro mutadawiciina oo ku deeqay $12,000 oo qayb ka noqon doonta qodista dhaamkan in kharashaadka lagu bixiyo waxaa qalabee kale ka shaqaynayaa waa qalabkii qarankani lahaa khaasatan qaybta ka mid ee dowladda hoose waxaana farxad bay noo tahay inay kolkaa intaasoo dhan dhacdo madaxweyne ku soo dhaweey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مدحوينها جمهورية سومالان مدن أحمد محمود سيلايو وسيرada qaranka madaxda kale ee halkan maanta ku sugan dhammaan maayarka barasaabka dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkan waxaanu u joognaa ballaysinka mashruucii ugu horeeyey ee qayb ka noqon doona kasoo kabashada mashruucii abaarihii bulshadeena dhibaatada badan gaadhsiiyey mudane madaxweyne waxa maanta runtii farxad noo ah in annagoo ah dhalinyaro iskoodii soo abaabulay muddo ilaa 2012kii ummadda u shaqaynayey annagoo shirkadaha kala duwan iyo hay'adaha dawladda u shaqayna haddana waqtiyada noo soo haray inaanu qarankayaga u fakarno qarankayaga wax gaadhsiino qarankayaga wax kastoo nu qaban karno inaanu ku darsanno maanta $12,000 oo noqon doona qarashaadka ayaa waxaanu la kaashanay dawladda hoose oo maayarku runtii horkacayo iyo guddigii kabashada oo runtii Mustafa iyo wasiirka madaxtooyadu gudoomiye u yahay runtii waxa aanu aad ugu faraxsannahay inaanu maanta annagoo cududii dhalinyaro ee qaranka ah inaanu madaxweynahaygii garab taaganahay inaanu ka shaqaynayno in maanta dadkeena ay isku tashadaan oo iyagu ay wax wada qabsadaan oo ay dareemaan inaan ceelno u qodnayn cidina u maqnayn ee wixii inagu aynu qabsanno iyo saacabadeena inaynu biyo kaga dhergi karno mudana madaxweyne taariikhda ay ku geli doontaa cid kastoo hawshan ka qayb qaadatayna taariikhda ay baaldahaba ka geli doonaan ilaahayna hay nagu asturo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala hay nala garab qabto aad iyo aadna dhammaantiin waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay waa mahad halkan maanta suukan keenay waxaanu aad iyo aad ugu ammaanaynaa dhalinyarada isaabishay in halkan laga qodo biyo xidheen oo fakiray dhaqaalahooda isu geeyey aad iyo aad baanu u bogaadinaynaa maayarka magaalada oo sida ka qayb qaatay oo magaca xilka inta badan foogi doono isaga iyo golihiisana waa mahadnaqeena madaxweynaha oo maanta waa bishii 18 tahay oo maalintii dabaaldegii May ay tahay halkan dhiirigelintiina u yimidna aad iyo aad baanu mahadnaqeynaa waxay noo ballanaa inaynu howlgelino waxaynu ballan qaadnay oo aynu biyo xidheenka mid weynoo dadka anfaca uu noqdo xilkaa koowaadna wuxuu fuuli doonaa golaha deegaanka dhalinyaraduna way dib u joogi doontaa deerna way garab taagana qorshaheena qaranka waxaa ka mid ah inaynu balliyo samayno iyo dhaamam aynu biyaha ku qabanno kuwaasoo ka faa'iido badan biyaha dhulka ku jira dhaamkani wuxuu noqonayaa dhaamkii ugu horreeyey ee mashruucan lagu ballaysimo kasoo kabashada abaaraha wuxuu ku yaallaa meel muhiim ah oo buuraha arkaysaan bay biyo ka soo rugmanayaan waxaa lagu samaynayaa wax qabta waxaa iminka ciidda halkan way idiin muuqata waa ciid aad u wanaagsan oo beeraha ku fiican inaynu wax qodanaynu u baahannahay oo balliyadaa biyaha aynu beera ku falanno waxaan u mahadnaqaynaa dhallinyarada muxuu ahay bini aadamku hadduu wax isu geegeeyo wax weyn buu noqon karaa
mudane madaxweyne dhallinyaradani iyagaa hindisahan keenay waa u mahadnaqaynaa lacagtaa 12 kun oo doolarana iyaga iska soo ururiyey dowladda hoosena waxay ku deeqday qalabka mashruucan wuxuu ku kacayaa marka la qiimeeyey gebigiisba inta ah 12 kun oo ah kharashkii iyo qalabkii dowladda hoose wuxuu noqonayaa markaa tusaale weyn oo mashaariicdeena dambe u noqda madaxweyne waxaan jecelahay inaad dhallinyaradana u mahadnaqdo cagaftana aynu fasaxnay inay bilowdo qoditaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فرحت وين بيتنا المانتا مشروعا قيمة وين يقعدا وين الدلك ugu fadhiyayna nufuro aad baan ugu maadanayaa ciidal cid ka qayb gashay dhalinyarada iyo cid hawsha ka abaabushay iyo intii ka howlgashay intaba aad iyo aad baan ugu maadaqayaa inay la qabto amaad